maxkamad ku taal magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota ayaa 53 sano oo xabsi ah maanta ku xukuntay ninkii hogaamiyaha u ahaa kana dambeeyay abaabulka qarxii sida ulakaca ah loola beegsaday masjidka Daarul Faaruq ee ku yaal magaalada Bloomington ee gobolka Minnesota. Garsooraha Dovan Frank oo ah garsooraha maxkamadda federaalka gobolka Minnesota ayaa go'aan ku gaaray in ninkan lagu xukumo 53 sano oo xabsi ah, kaasoo sheegay in cadeymaha ay maxkamadda la hor keenay ay muujinayaan Mitchell Harris uu ku kacay fal aad u xun oo argagixiso ah, taas oo ka hor imaanaysa xorriyadda diinta ee uu damaanad qaaday dastuurka dalka Mareykanka. Sidoo kale, garsooraha ayaa sheegay in ninkan iyo koox uu hogaaminayay ay soo qaadeen weerar loogu talagalay in lagu cabsi geliyo laguna argagixiyo masjidka Daarul Faaruq. Haddaba, qaar ka mid ah hogaamiyayaasha bulshada ayaa u waramay Nabad TV waxayna ka warbixinayaan dareenkooda iyo sida uu u dhacay xukunka. magacayga waxa weeye Imaam Maxamed Cumar, waxaan ahay directorka Daarul Faaruq. maanta halkan waxaa ku soo gabagaboobay 4 sano oo baaris iyo dabagal iyo maxkamadeyn ku socotay raggii qarxiyay masaajidka Daarul Faaruq ee Bloomington. waxayna ku soo gabagabooday maxkamaddii maanta in la xukumay ninkii hogaamiyaha u ahaa la dhihi jiray Michael Harris oo lagu xukumay 53 sano oo uu ku jiri doono xabsiga. waana ilaahay mahadii in muslimiinta ku nool Minnesota iyo guud ahaan muslimiinta ku nool wadanka Mareykanka dhibaatadii iyo hagardamadii lagu waday in Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu maanta soo saaray in ninka la xukumo oo la qabto oo in badan ay dhibaatadeeda nagu soo noqonaysay masaajidada aan ku tukanaynay iyo meelaha aan ku cibaadaysanaynay dhib badan nagu hayeen nimankan loo yaqaan cunsuriyiinta cadaanka ee nacab islaamnimo nacabka ku jirto. Anta waxa ka socda maxkamadda federaalka state-kan Minnesota macnaha districtigeeda waxa ka socda maxkamadeyn la rabo in xukun lagu rido nin cadaana oo 2017 qarxiyay masaajidka Daarul Faaruq bishii August 5-teedii. ninkaasi wuxuu qarax la beegsaday masaajidka xilli fajr ay tahay, gaar ahaan xafiiska imaamka. dhib weyn baa soo gaaray bilinka iyo xafiiska imaamka. nasiib wanaag xilligaas imaamka xafiiska uu ka maqnaa. waa la qabtay, waa niman la yiraahdo waa niman Malaysia ama koox maaragtay argagixiso ah oo la yiraahdo White Rabbits oo Chicago Illinois degan oo anaga noo jirta 6 saac oo gaari ama saacad diyaarada. horta maanta alxamdulillah waxa waayo community-ga oo kamid xaafadda Bloomington iyo masaajidka Daarul Faaruq. waxaan rabnaa horta inaa dhaho jazakallahu khayr dadka oo intaas oo sano oo barnaamijkan la socday. maanta alxamdulillah waxaan soo gaarnay ninkii oo na qarxiyay oo ahaa kii oo liid gareynay barnaamijkaanan inaa maanta xukum loo dhiibay oo 53 sano ah. horta 53 sano waa number weyn, but waxaan rabnay inaa horta ninkan oo lifekiisa inuu ku xirnaado xabsi. taas waa hel weyne, but alxamdulillah 53 years waa ama 53 sano waa sentence xukum oo dheer waayo oo weligiisay oo kaysaan camal ah oo lagu xukumin. waxaan maanta aan soo afjarnay ama la soo gunaanaday 4 sano oo community-gan bishii 8-5-teedii 2017 ayaa la qarxiyay masaajidka weyn ee Daarul Faaruq. maanta alxamdulillah 3 nin ee qarxiyay masaajidka mid ka mid ah baa maxkamadda la saaray. waxa uu mutaystay xarig ah 53 sano, 47 sano ayuu jiraa. ilaahay hadduu raalli ka noqdo oo aanu ku dhiman meesha 100 marka uu gaaro ayuu soo baxayaa. waa guul weyn. saaka waxaanu ka soo qayb galay maxkamaddii ninkii cusuriga ahaa ee ku ahaa cabsigelinta dadka muslimka ah, khaas ahaan ku sameeyay masaajidka Daarul Faaruq, ku tuuray hogaamiyaha ahaa liidar gareynayay. maanta inta saaka subaxdii saanu u nimaadnay oo guusha ugu fiicnayd ka soo baxday loo jaray 53 sano. waxaan joognay meeshii maxkamaddii xukumaysay ninkii u ahaa hogaamiyaha
groupkii Illinois ka imaaday stateka ama gobolka Illinois loo yaqaano oo noogu imaaday masaajidkeena inuu qarxiyo 4 sano baan case-kan daba soconay run ahaantiina waxaan public baan ka dhignay meel kastaan u marnay community aan ka cidnay state-ka dhan aan ka shaqaynaynay islamophobia inay tahay arin laga hor imaado oo ah islaam naceebka taasna maanta waxaan isleeyahay guul baan gaarnay guushaas oo ah ninkii isaga in lagu xiro konton iyo maarkino maxaa la dhahaa 3 sano in maarkino la dhaho waa la xiraaya isagoo hadda waa iska konton jir waa 100 sano markuu jiro inuu soo baxayo waa iska life waaye life sentence u dhow yahay oo ah in noloshiisa uu gaal shira ku maarkino ku maxaa la dhamaysto labada nin ee kale ayaa iyagu horay u qirtay in ay dembigan ku lug lahaayeen waxayna ogolaadeen in ay ku markhaati furaan ninkan isagu hogaaminayay. Asmar Cabdinuur, Nabad TV, Minnesota.